السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوada janaalka Sharma Sheekh iyo tiknoolajiyada kombiyuutarka. Cashirkan waa cashirkii lixaad ee barashada kombiyuutarka. Maanta waxaan baranaynaa diska baarahan iyo sida uu shaqeeyo iyo xadirtu waxaan baran doonaa disk-PC-ga sida loo qoriyo sida loo soo bandhigo. Haddana waxaan guda galaynaa sida loo soo saaro application-ada. Haddii aad rabto inaad application aad soo saarto desktop-kaada waxaad tagaysaa halkii aad rabto inaad soo saarto. Tusaale waxaan soo saareynaa waxaan rabnaa inaan soo saarno CapCut. Right click ayaa ku dul leedahay ku qortigaysa. Markii aad right click aad ku dhacdo ku soo bixi doona saan waxaa ka sii tagaysaa show more option. Haddii ku soo baxdo show more option ayaa ka sii tagaysaa. Markii aad ka tagdo waxaa ka sii tagaysaa bin to start bin to disk bar ade bin to disk bar. Haddii bin to disk bar aad doorato wuxuu ku soo fuuli doonaa dhakan. Haddii aad bin to start aad doorato wuxuu ku gali doonaa dhakan gudahan ayuu ku gali doonaa oo dhakan inta ayuu ku soo gali doonaa. Okay waa qortigeena right click ayaa leenahay show more option bin to disk bar inta ayuu soo fuulaya waa kan CapCut. Haddii aan dhahno no show bin to start haddii aad dhahno wuxuu gali doonaa dhankan oo ah waa kana inta ayuu soo gali doonaa waa kana. Haddii wadada labaad oo loo soo saarto start disk bar sida application wadada labaad oo loogu soo saarto application-ada ah start menu-ga ayaa tagaysaa kadibna waxaa ka dooranaysaa halkii aad rabto inaad soo saarto. Tusaale screen recording ayaa soo qaadaya anoo click ayaa soo jiidaya ayaa ku deynaya waa ka saas ayaa lagu soo geliyaa wadada labaad midaas waaye. labadaas wada iyo labadaas qaab ayaa loo soo geliyaa waaja dhowr qaab oo loo soo geliyo way jiraan. labadaas qaab ayaa maanta baranaynaa. Okay disk bar loo qariyaa loona soo bandhigaa gudaha ayaa haddii aad rabto inaad midaas sameyso meel qaran ayaa right click aad ku leedahay disk bar ayaa ka dooranaysaa. markii aad ka doorato wuxuu ku soo bandhigi doonaa meesha ayuu ku keeni doonaa. haddii uu kan hoos ayaa u soconaysaa waxaa leedahay disk bar behavior automatically hide disk bar mujibsido disk bar kuma saaran meeshan. haddii uu san kaga qarsayaan waa meeshan ayaa tagaysaa click ayaa siinaysaa sidaas ayuu kugu soo saareen. Okay haddii sidee disk inta loogu wareejiyaa kan inta loogu soo wareejiyaa macnaha loo kala hormariyaa. haddii aad rabto inaad sameyso centerka markii inta aad joogto wuxuu ku sameeyaa lift. haddii aad dhacdo wuxuu hadirtii kan ayuu midig ku geey doonaa kan hadirtii Fahrenheit dhaka ayuu soo marsi doonaa. tusaale hadda fiiri sidaan oo kale hadda waa kana Fahrenheit dhaka ayuu kugu soo galay. Okay sidan ayaa noo ahaanaya anaga. Okay sidee loo qariyaa shanta application sidee loo qariyaa shantan application ee kombiyuutarka ku jirto. shanta application oo kombiyuutarka marka hore oo ku yimaado aan laga daladi karin. Okay waxaa leedahay meel banaan ay right click aad ku leedahay personalize ayaa ka dooranaysaa. waxaa ka sii dooranaysaa demis markaad doorato waxaa ka sii dooranaysaa desktop icon setting. marka aad ka doorato waxaa ka sii dooranaysaa kuwan tigta aad saaran tahay ayaa tigta ka qaadaysaa. Okay waxaa leedahay apply. Okay waa ka kuma jiraan sidee ugu soo celi karnaa marka applicationska meel banaan ayaa right click aad ku leedahay personalize aad dooranaysaa. waxaa ka sii dooranaysaa demis ayaa dooranaysaa kadibna waxaa ka sii dooranaysaa desktop icon setting. markii aad doorato waxaa ka sii dooranaysaa weli sama bixin kuwan tigta aad ka qaadaa tigtooda u celinaysaa. Okay markaad tigtooda aad u celiso waxaa leedahay apply. Okay window D. Okay waa kuwana shanta application.